magaalada Guriceel oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee Soomaaliya dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa ka taagnaa muran ku saabsan furitaanka masaajidyo xirnaa muddo ka badan 12 sano. masaajidadan hore waxaa u xiray maamulkii Ahlusunna wal Jamaaca ee deegaanka ka talin jiray. hadda markii ay halkaasi gacanta u gashay maamul goboleedka Galmudug waxay culimadii hore masaajidadaas u maamuli jiray ay bilaabeen olole ay dib ugu furayaan masaajidadaas iyaga oo doonaya inay dib u howlgeliyaan. waxay sheegeen inay u mareen waddooyinkii saxda ahaa sida wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee Galmudug, wasaaradda amniga iyo maamulka degmada Guriceel. warqad ogolaansho ah oo ay dhinacyadaas ka heleenna kadib ay masaajidadii dayactireen oo ay fureen. maanta iyo shalay ayaase la xiray, waxaana xiray ciidamo uu hogaaminayo Janaal Mascuud oo markiisii hore ka mid ah saraakiishii Ahlusunna haddana ku jira militariga Soomaaliya, iyo ciidamo uu hogaaminayo oo iyagana markii horeba ka tirsanaa maleeshiyaadka Ahlusunna haddase militariga u diiwaan gashan. waxay ka digeen ciidamadaasi in la furo, waxayna sheegeen in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda ciddii furta wixii dhibaataha u dhacda. maamulka ayaa ku kala aragti duwan arrintan. xubno wasiirahay waxay ku baaqayaan in la furo, qaladna ahayd xiritaanka. xubno kale oo wasiirro iyo kuwa baarlamaanna waxay ka digeen furitaanka. micnuhu waxa weeye in maamulka uu gelgelay arrintan masaajidada ku saabsan. maanta bannaanbax ayaa dhacay, waxaana qaar ka mid a culimmadii diidaneed in la furo masaajidadaas ay sheegeen haddii la furo inay gubi doonaan. waan waraysannay, laakiinse waxaan ku hormarayaa marka hore culimmada raadinaysa in dib loo howlgeliyo masaajidadaas oo aan la hadalnay. waxay sharaxayaan doodda taagan iyo waxay ku timid iyo waddooyinkii ay soo mareen iyo eedaha loo jeedinayaba. waxaa ka wakiila oo aan waraysannay Sheekh Saaci Shariif Maxamed. waa mahadsantaa mudane. masaajidada Guriceel oo buuqooda maalmahan u socdo sida aad la wada socoteenba waa masaajido muddo dheer oo ilaa 12 sano ah xirnaa oo u xirnaa nidaam meesha ka jiray. markii nidaam meesha yimid oo marka awood isbadaya meesha maadaama uu kusoo kordhay raggii joogay na muruq loo sheegtay, waxaa maslaxada beledka iyo dadka dhanba muuqatay in sidaas awooddaas uun la qiro, sidaasna masaajidadii lagu soo kala tago. mid la xiro iyo mid yacni loo hanjabana waa laga dhigay oo taariikhda ay wada ogtaa, dadka beledka joogan ay wada ogyihiin. kabacdi markii fafaalaha ay muuqatay dowladnimada iyo waxa meesha ka dhacay in dowladda timid iyo meesha maamul dowladeed inuu tegey, waxaa hal iyo hami oo soo galay intii meesha ka maqneed oo waddanka iyo dowladnimada wax ku lahayd. marka waxaa lagu fakeray in nin kasta waddankiisa ku laabto, ganacsiyadii horumarkii waddanka la geeyo. markii ganacsi meel uu tagana waxyaabaha basiga iyo daruuriyaadka waxaa kamid a qof kasta uu u baahan yahay in masaajidadii, madaaristii, ardadii, ilmihii meesha haddii loo guuro meeshii la geey lahaa in laga shaqeeyo. taas muxaawalaadkaas wax markay imaadeen isku dayadaas waxaa ka dhalatay in la yidhaahdo nidaamkii hala maro, oo wadaadada meesha tegey ay mareen nidaamkii duwaliga ahaa oo ay kala hadleen wasaaradihii iyo laamihii ay khusayday hay-adihii arrinta ku shaqada lahaa. waxay shatiyo iyo ogolaansho ka soo qaateen wasaaradaha khusaydo sida wasaaradda awqaafta oo shaqadeeda masaajidada ay awlawiyaadka koowaad tahay. waxaa sidoo kale ka warqabay wasaaradda amniga si guud, waxaa ka warqabay dowladda oo dhan iyo maamulka jira oo dhan ayaa ka warqabay. iyadoo ogolaanshahaas haysata ayaa waxaa la bilaabay masaajidada in la dayactiro kadibna la furo sida aad ka war haysaan. mar dhexe ayaa waxaa dhacday marka in xoogaa buuq yimid. buuqii mar labaada haddana la celiyey, dowladdii ah ka soo hadashay, wasaaradihii khusayday ah ka hadlay. waxaa kadib markii intaas ay dhacday haddana ka fadhiistay odayaashii deegaankii iyo dhaqankii. ayagaa mar kale waxay haddana soo jeediyeen arrinta dowladda ka soo baxday inay waafaqsan yihiin, dowladdana ay ku taageersan yihiin in Galmudug loo dhan yahay meesha ay ka dhacdo. ninkii marka hore u joogi jiray kii ka maqnaayba intii aan markaa dhibaato gaara ayagu aan wadinin in waddankooda ay wada imaan karaan. masaajidaduna ay furan yihiin. waxay kamid ahayd hadaladii odayaasha ay ku hadleen, madax dhegelaho wax maqal, masaajidadu waa noo furan yihiin. markii intaa ay dhacday kadib masaajidkii amarkii odayaasha ka soo baxay oo ay xiganayeen amarka dowladeeda madaxweynuhu ugu horeeyay iyo wasaaradaha ay khusaydo, waxaa shalay albaabada loo furay salaadii duhur masaajidadii qaar kamid ah. markii salaada duhur lagu tukaday halkaas salaadii lagu kala tegay casirkii la sugayo ayaa waxaa yimid ciidamo militari ah oo markaa ayagu magaaladaba ka baxsanaa
awaamir lasoo siiyey ayagoo duulaya yimid sida inay dagaal u socdaan weliba gawaari wata ayagii ayaa masaajidkii marka ka kor dhacay xoog albaabka ku jabsaday u gudbay darmihii ama aan dhaho firaashkii iyo gogashii masjidka taallay waa rasteen amrafaayaradii xataa gacankii lagu adimayo waa qaateen tubooyinkii masjidka waa la jebiyey ilaa biyuhu iska qulquleen oo masaajidkii ay buuxiyeen waxa waye qof kasta wixii intii markaa soo weerartay oo askartii meesha joogtay mid kasta wixii uu ka jebi karay wixii uu ka qaadi karo ka qaaday kabacdina intaas kuma aysan simin masaajida kaleeto xataa nidaamkii hore markuu joogo furnaayay weerareen oo ay markaas ayagu si gaara u arkayeen masaajidada markii dadkii odayaashii meesha deganaa qaar kamid ay dhehmaayeen warsaan waa sayna nin badan ganacsatada magaalada kuwa ugu cadcad kamid ahay wadada dhexdiisa dharka ka siibeen indhaha ka xireen kabacdina dadka u jeeday magaalada ku horjiiteen oo ninkii xagaa ii wadaan dad askartiin saldhigi waa kanaa uu leeyahay haddana waxaa muuqatay inay nidaam ku yimid maysan ahayn waxay ninkii u wateen meel gaar ay ka imaadeen ayadoo ninka u muuqda nin qafaalan alxamdulilah adugu say noqotaba hadda masjidkii sidaas ayaa marka hore lagu furay hadeertaana ku xiran yahay waa maasanta waxaan rabaa maxaa dood geliyay masaajidan markii hore dee meeshu dawlad kamay talin ama maamul kama jirin koox baad haysatay dooda iyo duruufo badan ba loo maro in la xiro hadda waxa idinkula haysto oo ay ciidamada militariga ah iyo culimada kale oo gees ka qaalinaysa ay idinku haystaan oo idinkula qabo maxaa weey waa maasan tahay waa fuudahay waxa lagu haysto waxa weeye sida aan rabo wax u dheh sida aan rabo wax u sheeg waxaan raba haddaadan sheegayn ma soco karto waxaad qabto masaajid adigu aad ama ka wacdido ama aad ka adinto oo aniga aan hoos imaani ma jiri karo marka ay yiraahdo war adiga dawlad ma tiiyo see ku hoos imaadaana waxa marka meesha ka dhacaysa in qofkii uu halkaas kadib uu inta soo maro uu yiraahdo adigu waxaa tahay shabaab maadaama aniga aad iga aragti duwan tahay markii dawladda iyo hal aada la maagana laftirkeeda lagu leeyahay dawladda laftirkeeda shabaab ah sida qaarkood ay ku dhawaaqeen arrintaas markii intaas sameeyaana waxaa kusoo xigtay falalka intaan ahay oo dhacay oo weliba ay qaarkood kusii faraxsan yihiin oo facebookyada ay kusoo qorayaan gaar ahaan taliyihii meesha soo weeraray oo ciidanka watay facebookiisa uu kusoo qoray sheekh waxaan rabaa xiray wax xaqana aan lahayn sheekh maxaa keenay in idin la yiraahdo fikir al-shabaab ama fikir xagjirnimo ayaad ku baahinaysaan ama ku abuureysaan guriceel idin meesha masaajidyo kala ka furan culimo kala joogta idinku maxaa gaar idinla calaamadeeyo cabsi idin kala qaba waxaa jirta waxyaabo oo islaamka loo isticmaalo oo qof kasta uu ka doodsan yahay markii la yiraahdo adiga al-shabaab aad tahay waxay noqotay kelimad ka dibmi karta dadka beledka jooga taas ayaa waxay sabab u tahay qof aan shabaab ahayn iyo qof aan shaqo ku lahayn in lagu dejiyo kaliya inuu noqday qof ka aragti duwan kaliya inuu noqday qof wadankii horumar kusoo kordhinaya kaliya inuu noqday qof ka dhaqdhaqaaq badan oo haddii beledka uu yimaado saameyntiisa saameyn ka badan inuu yeelanayo uu arko culimadan kale iyo idinka is-haystaa ama kala aragti duwan maxaa weeye waxaa ku kala bedelantihiin maxaa isku haysataan ama aada isku fahmi weydeen wallahi horta haddii hadda taas aan ka hadalno wuu dheeraana maqaamka iyo hadalkeena laakiin haddaan ku khulaaseeyo waxa aragtida cilmiyeed ee lagu kala duwan yahay haddaan xagga iska dhigno waayo aragtida cilmiyeed ayadoo lagu kala duwan yahay adduunka gaala iyo muslimiina wadamo ka dhexeeya wadamada shiica iyo sunna ka dhexeeya wadan kasta waxaa ku nool xataa wadanka aan hadda joogno goboladiisa kaleeto dad kala aragti duwan laakiin khulaasada marka lagu soo aruuriyo waxay tahay waa intaan sheegi karo ka badan haddaad sheegi karto intaan saameyn kara ka badanna aad saameyn karto kuma ogolaa karo fursad aad dadka aad markaa wax ugu sheegto inta ugu badanoo jirta haddii lasoo aruuriyo intaas ayay noqonaysaa maxaa idinka xal u aragtaa markan haddaad intaad soo marteen wadooyinkii ay ahayd in la maro oo maamulkii wasaaradda arrimaha diinta u tagteen wasaaraddii amnigii u tagteen maamulkii degmada marteen madaxweynihii ka hadlay wixiina ay socon kareen laayihiin magaaladii cabsi ka jirto maxaa idin qorshe ah xalka waxaan u aragnaa mudane adoo naadsan annaga dawlad iyo nidaam soo marnay haddana dawladdii nidaamkia marti u nahay waxaa weeye nidaamkan dawladda ka soo baxay ee wasaaradaheedii arrimaha dadka ay khusayda ay ka warameen annagu amarkoodii ayaan qaadanay amarkoodii aan wax ku fulinay wixii ka falcelinaya ka jawaabidana ayagaa laga rabaa gudoomiyaha degmadana waad maqlaysayo
waa kii ka warramay in sharci darra ay meesha ka dhacday wixii ka dambeeyana isla maamulka waxaan ka sugaynaa inay ka falceliyaan arrintii ay ogolaadeenna fulinteeda ayaga maamul ah ayaan ka sugaynaa annagu markastaba nidaamka iyo legalka iyo sharciga aan daba soconaa wax anaga horboodo ah iyo fadqalado iyo dhinac booda midna naguma jirto nidaamka xalka waxaan u aragnaa marka in maamulka uu ka hadlo arrintaana maamulka uu soo istaago dadkana uu fahamsiiyo ama uu kala hadlo in waddanka la wada leeyahay in lagu wada dhaqmana ay daruuri qasaba ay tahay sheekh saacid shariif maxamed oo culimada magaalada Guriceel ka mid ah si gaar ah culimada raadinaysa in dib loo furo masaajido 12 sano ku xirnaa magaaladaas ayuu ka tirsan yahay dhinaca kale waxaa jira culimo u diin kale oo galmudug ku nool gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb iyo Guriceelba oo diidan in masaajidahaas ay shaqeeyaan waxa ay aaminsan yihiin ama ay sheegayaanba in halkaasi ay noqon karto fikir laga abuuro falal amni darro ama dhalinyarada loogu abuuro inay ka mid noqdaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo argagixisada kale oo lagu bedelo aragtida ay aaminsan yihiin sida ay qabaan maanta ayaa banaanbax dhacay waxaana banaanbaxaasi ay shacabkii dhiga ee dalbanayeen in aanan masaajidahaasi la furin dadkii banaanbaxa waxaa ka mid a sheekh ismaaciil macalim weliba wuxuu ku baaqay ama uu sheegay in la gubi doono masaajidadaas haddii ay dib u furaan culimada waxaan weydiinay sababtii keentay in warkaa uu yidhaahdo iyo sidoo kale waxa ay ku diidan yihiin in la furo masaajidadaas aniga magacayga ismaaciil macalin baa la yidhaahdaa waxaan ka mid ahay culimaauddiinka gobolada dhexe culimaauddiinka soomaaliyeed khaasatan waxaan joogaa degmada Guriceel dhibka meesha ka jira waxa weeye nimankan firqatu salafiya la baxay ama majmaca ama takfiirka waxa doon taqaanid basirqooyinkaas oo kala duwan ayaa deegaankan waxay yimaadeen waqtiyadii maxaakimka iyo wadanka ay ku soo ballaaranayeen waxay marka ka fureen goobo markii ay ugu tilmaameen dadka inay ku horumarinayaan sida masaajida iyo macahadyada iyo madaarista bacda ayaan markii la joogayna dad badan la geystay arda badan la geystay waxa deegaanka ka bilowday mission in dadkii muxuu ahaa bastoolada lagu laayo aqoon-yahankii culimaauddiinkii dadkii meel looga yimid waa qowaaye waa garta kabacdi dadkii way baraarugeen waxay ogaadeen markii numbers lagu soo wacayo waxyaalo tiro badan oo deegaankii ka dhaceen dagaala meesha ka dhacay 2008 goobihii way xirmeen marka oo meesha ay nimankan gacanta ku hayeen masaajidada ka wada goobihii ay gacanta ku hayeen ama macahadyo ama madaaris ama masaajid iyo waxay una haataba way xirmeen oo waa albaabada dadkii joogay yaa ka barakacay waa garta dagaalkii meesha ka socday ayaga gooni loo barakicinayn dagaalku mar haddii meel dagaal ka dhaca ma ogtahay mar haddii dagaalkii shabaab lala diriraa la islahaa kabacdi waxaa la ogaaday shabaabku in ay yihiin xertii ka kacday ama ardadii ka kacday masaajidan iyo madaaristan dadka wax lagu barayay inay yihiin shabaabku saasa dadka ogaaday say ku ogaadeen dadku waxay ku ogaadeen ardadii oo hubaysan oo madaxa loo duubay baa deegaankii dib u soo weerartay waa garta hooyooyin badan ilmahoodii baa moobeel ku soo wacay waxay yidhaahdeen hooyo islaamkii baan ku biirnay adiga tawxiidkaa lagu laqamahayaa aabba mujrimiintaad la joogtaa ardadii oo dhan bayba ka haysteen wax allaale wixii loo geeyo o dhan bay ka haysteen intaasoo dhan marka sheekh ma wax la yidhi oo dad un laga koobiya ama laga hayaa mise waa wax la hubiyo oo aad dul tagteen oo aad xaqiijiseen ilaa culimaatiin meeshii joogtee maya waa la dul tagay oo waxaa lagu dul tagay xataa qaar meelo kaleo dabadaha lagu ogaay baa waxaa laga arkay Guriceel meydkoodii oo yaalla ilmo fara badan oo waxbarasho loogu dhiibay oo wax la arkay dagaalkii ku soo biiray waxaa dhacday oo deegaanka Guriceel markaasi ka wiil aabihii soo wacay oo dhahaya aabe waxa weeye waa kugu janno tagaya odagiina wuxuu ka soo jeedaa dhinaca shacabka iyo culimada ahlu sunna wal jamaa ay ka soo jeedaan waa arrin cad oo xaqiiqo ah laakiin Guriceel gaar uma ahan dhibaatooyinka hadda aad warinayso dadka waalidiintooda soo waca kuwa shabaab ku biira oo midadkooda ama dagaalo ku dhinta la arka wax Guriceel gaar u ah maahan qof adiga aad og tahay oo culimadan aad leedihiin fawday wadaan shabaabay ka tirsan aad leedihiin ka tirsan oo aad hebel iyo hebel dhihi kartaan oo al-shabaab intay noqdeen dadka abuuray Guriceel ku hubeeyay ma haysaan maya anagu culumma fawdo wadamada aanan dhihin fikirkan oo gurigiisa dhan baaba wuxuu ka samaysan yahay
marka hore in magac masjid iyo magac machad iyo magac madrasa deegaanka lagu soo geliyo ilmihii la geeyana aysa deegaanka dib ugu soo laabanba marka hore waa magac culimo in la gashado ka dhacdina midiliba afleeya meesha laga soo saaro laakiin dadkan dad la yaqaano waa hadda masaajidada u oolayna in la furo deegaanka laga yaqaana magaalada iyo gobolkay u dhasheen waa ku soo waxbarteen waa ku barbaareen way joogi jireen dad la yaqaano oo aan shabaab iyo koox fawda wada ama dhibaato geysata dalka ka mid ahayn way walaal khayr Allah ku siiyo shabaabku ayagoo fawdo wada calool hooyo kama ayna soo bixin fawdadana kuma aysa dhalan waa fikir la barbaariyo oo dadka la baro fikirkana baraha bunkooda dadka laguma bare waxa lagu baraa meelo masaajid magaceed leh ahadiyo magaceed leh madaaris magaceed leh marka qofkii inta ilmagaagii ka wada soo bara sida muxuu ahaa miinada loo xabaalo ama midida wax loogu gowraco sheekh dambe u aamini maysid ilmahaga waad u diiraysaa meesha uu furayna difaac baad ka gelaysaa marka shacabka hadda Gurceel joogaahi waxa weeye way ku ilbaxeen barnaamijkan way og yihiin qofka mu'minkaana god laba goor lagama qaniino marka dadku waxaysan diyaar u ahayn meelihii dadka mid kale waxaan ku sheegayaa masaajidda meelaha ay ku magacaabayaan qaar kamid ah iyadoo miina lagu dhex sameeynaya la soo qabto waa mahadsantahay Sheekh Ismaaciil waxa weeye dadkan Soomaaliyeed aad leedihiin shabaab ay ka tirsan yihiin hadda oo lalaha masaajidadan dib loogu furayo wada waxa weeye anagu uma hayno wax cadeena eedeynta u jeedinaysaan laakiin waxaan rabnaa xaqiiqada aan haynaa waxay tahay oo aan dad kala duwan iyo maamullo iyo culimo kale aan ka xaqiijinay waxaad ku haysataan inay yihiin caqiido oo aad rabtaan inaad wax u yeerisaan sida idinku aaminsan tihiin oo aad rabtaan wax ku wadaan oo aynaan ayagu aragtidooda iyo cilmiga iyo qaanaan iyo si wax u fahamsiin wax u wada inaadnan rabina waa mahadsantahay horta fikirkaani wuxuu soo galay Soomaaliya waqti dhow oo hadda la yaqaan taariikh la yaqaano ah waana fikir ay dawladda maalgeliyaan looguna talagalay Soomaaliya qalalaasad diineed iyo qalalaasad deganaan la'aan in looga abuuro culimada Soomaaliyeedna waxba ma meeriyaan waxa weeye waa dadkii calanka soo dhiciyay waa dadkii Soomaaliya xasiloonida ku soo dabaalay waa dadkii Soomaaliya xorriyadda u horseeday waxa la cirib goynayaana waa aqoonta qadiimiga iyo taariikhda Soomaaliya oo dhan baa la rabaa in taxdiidada loo siiyo calanka mid lagu bedelo calanka cagaarka dadkan waa dad Soomaaliyeed oo muslimiin oo sunni ah waay hadii dawlad goboleedkii meesha ka jirta gaar ahaan wasaaradda arrimaha diinta iyo qaaftay xaqiijisay ogolaatay wasaaradda amniga ogolaatay maamulkii magaalada ay ogolaadeen idinka cilmigan gaarka aad wadataan aad ku ogaateen maxay yihiin dadkan aad ku dhaliilaysaan maya wasaarad ogolaatay oo ninka joogahay nin ahlu sunna yahay oo nin caqiido fiican yahay anagu maba oginba ahlu sunna ma idinka maamulkiina kaliya u taqaanaan maya ahlu sunnanimadu ma aha waxa weeye group gooni ah waa dadka caqiidatu ahlu sunna wal jamaa ee ash'ariyada iyo maaturidiyada dadka ahlu sunna wal jamaa loo yaqaano xisbiyadaanuna ayagaaba magacyo la baxo idaacadaha iyo miidowga ka maqlayda iyagoo dhahaya firqatu salafiyya iyo hebla iyo takfiir iyo faaraha waxa iyagoo la baxayo waad maqlaysay dadkan masaajidada furay waxa uu ogolaatay wasaaradda arrimaha diinta ee dawlad goboleedka Galmudug waxa uu ogolaatay wasaaradda amniga oo hubisay waxa uu ogolaaday maamulkii magaalada Gurceel inta aad masaajidadii xiri lahaydeen oo aad ku banaan bixi lahaydeen maxaadnan inta ay soo mareen oo dawladda u tagin idinka aad u mari weyseen maya waxaan ku sheegayaa mudane khayr Allah ku siiyo wasaarad warbixin ka soo saartay oo dhahaysa markaan baarnay 2008 wixii meeshaas ka dhacay goobahaanu inaysan wax dambiya ku lahayn dagaalkii shabaab oo meesha ka dhacay gumaadkii meesha ka dhacay inayna ku lug lahayn nimanka waxbaan furaynaa lagu inaysan eedeysanayaal ahayn baaritaan noocaas anagu qola inta soo diyaariday ka warbixinaysa ma baanan aragba idinka hawsha si ay idin dirsay oo maciidan baatin hadii eedeen loo qabo ama shabaab ku eedeysanay ama lagu tuhmayaba howl ciidan weeye wax idinka idin yeelama anaga waxa noo yaala wixii amniga naga iyo deegaanka naga ku saabsan anaga xor u ah ilaa Soomaaliya laga helo ciidan xaqaa'iq ka turjumi kara in qaraxyada Soomaaliya midaafaheeda ka socda fitanka meelaha Soomaaliya ka socota in lagu soo barjabay anagu diyaar uma nihin oo shaati dawladeed iyo mid maamul goboleed anaga naloo soo raaco madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ayaa Gurceel isagoo ku soo khudbad u jeediyay
waxa uu ku amray in la furo masaajidada la ogolaado dadku inay wada noolaadaan heshiis noqdaan amnigooda iyo nabadgelyadana ay isku meel uga soo wada jeestaan haddii madaxweynihii uu idinkugu sarreeyey ogolaaday waxaan kale aad idinku wadaan soomaha fawdo oo aad ku doonaysaan inaad ku dudumisaan maamulkii iyo deganaanshihii horta erayga fawda xagga iska dhig wax fawda layidhaha meeshaan kama jiraan meeshu inay madaxweyne yeelato oo ay ka khudbaydo oo uu ka khudbeeyo waxa sababay horta waa shacabkeeda geeda u khudbeeyo oona mayn meesha madaxweynaha soomaaliya yimid ra-iisul wasaaraha yimid waa ku lugeeyeen inay amni tahay muxaqaq ah adoo weriye ah ka tahay saxaafadda caalamka markhaati ka ah meel marka fawda iyo balaaya ka jirta madaxweyneyaal iyo wasiire iyo ra-iisul wasaareyaal kuma lugeeyaan horta sidaas ogow waxaa soo haray ninka la yidhaahdo meel uu masaajid ha la furo iyo yaan la furo yidhi anagu maba aanaan ogeyn waxaa kaloo soo haray wada noolaashaha waxa la yidhaahdo wada noolaashuhu hadda wuxuu yahay waan cadaabaysaa iyo meel wada noolaasho lagu diiday anagu ma aanaan ogeyn maanta waxaad qabateen barnaamij dadkii ka qayb galaad ku jirtay waxaad dhahdeen waxaan gubaynaa masaajidada haddii la furo warkaas ma ku qanacsaneedeen oo ma idinla qurxoonaa waxaan kuu sheegahayaa horta meeshu mar haddii goob dambi ay tahay shareecada islaamka loo baarahayaa wixii shareecada islaamku ka qabto baana anagu kaga qanacsana adugu wax sharciga islaamka ka boodsan miyaad rabi lahayd in lagu dhaqaaqo sharciga islaamka ma wuxuu qabaa sida hadda adigu maanta sheegtay in la gubo baytullah oo gurceel ku yaala oo laba nin ama laba qof oo firqaah ay doodi ka taaganta waxaan ku xaqiijinayaa annaga bandhiganagu wuxuu ku saabsanaa oo shacabka gurceel ay soo bandhigeen in goobihii waagii hore dadka lagu siray oo waa waxbarasho iyo waa cibaado inta la yidhi dad fara badan galaaftay dib dambe inaan loo furin marka ujeedadaada waxa weye marka in la gubaahay raaliyaad ku ahayd waad baaqaagii maanta oo kula saxan yahay waxaan horta kuu sheegaya meesha warmurtiyad hadda lagama soo saarin bulshadii isu soo baxday warkoodiina inta lasoo xooriyey gundhigu noocaas ah weli lagama soo saarin waa soo bixi doontaa insha allahu tacaala adigu ha sugi waayin annaga aragna laakiin qoftee muuqaala oo weliba maqal aan hayn oo warbaahintii hortaagan oo ku hanjabaya inuu gubi doono masaajidada haddii la furo adiga ayuu weliba ahaa carabkaa ka dafay ereygaas masjid hala guba meesha ma aysan ool macnaha yaalla wuxuu ahaa fitanta meesha ka socota iyo kusoo gabadka ururka al-shabaab iyo tababarada meelaha lagu tababarayo ururka al-shabaab in aan la ogolaan sidaasuu shirku ku saabsanaa iyo isu soo baxo halkan hadda lagu doodayo waa la furaya la furi maan lahay waa masaajid masaajidadana dad gaar ahay ku tukan maayaan adigaa ku tukan kara kuwii maanta banaanbaxaya ku tukan kara ummad kalea ku cibaadaysan karta maxaadnan u siinina fursad in la furo guriga ilaahay oo lagu wada cibaadaysto dadka reer gurceel iyo galmudug iyo wixii yimaadaba horta magaalada masaajid fara badan baa ku taala masaajid fara badan baa magaalada ku taala waxaa horta ka takooray marka hore in la isweydiiyaa muhima marka kale waxaan rabaa inaan kuu sheego goobahan go-aan baa laga gaaray go-aanka laga gaarana shareecada islaamku ku qortamaa haddii meeshaasu ay tahay meel loo ogol yahay bulshada oo waqafa oo meel cibaado ah oo meel nabadgelyo ah oo deegaanka loo ogol yahay in la furo waxa weeye oo wax dhibaato ay sida waqaf ahaan meel loogu talagalaba meeshaan oo cibaadada loogu talagalay hadday tahay shareecada islaamkuna waqafkeeda ay xaqiijido dee in lagu cibaadaysta waaba loo baahan yahay laakiin waxaa meesha taalla magaca iyo muuqaalka masjid maahan masjid meeshu kaasi wuxuu sheekh ismaaciil macalim oo culimada magaalada gurceel ka mid ah oo diidanaa in masaajidadaas doodu ka taagan tahay la furo